heer nationalan jooga awalna heer hoosaan jooga oo ama heer gobola ama xataa heer fakshin ah oo koox ah haatanna heer qaran baan joogaayo alxamdulilaah anigu soomaaliya oo dhan oo ballaaran oo intaa ballaar leh baa ii dhaxaysa oo aan u dhexeeya oo aan madaxweyne u ahay oo mas-uuliyad u haya oo wanaagoodan jeclaa inaan ka shaqeeyo waxa iska kii bedelay marka waxaa weeye dareen nationaala oo guud baan hadda ku shaqaynaya laakiin awal mid gaara ayaad ku shaqaynaysaa gaaraan ku shaqaynaya waan arkay nairobi waxaa dad siyaasiyiin iyo qabiilo iyo soomaali kale isdaba socda oo intaa madaxda la kulmaya waktigaaga markaad fiiriso maalintii wakti aad firaaqa tahay ma jiraa badanaaba maya haddaanan been kuu sheegayn waayo ama hawshii aniga layga rabay baan haya ama wax sii xumaanaya markaan arko iyada laftigeeda inaan wax ka qabtaan jeclahay oo aan ku mashquulaa marka aad waqti yaroo nasiinaha hesho maxaad samaysaa markaan waqti yaroo nasiinaha gurigayaan iska joogaa kutub baan akhristaa qur-aanka qur-aan buugaagtan kaloo banu aadanku qoro oo nooc walba leh nidaamka dawladda dastuurkii aanu degsanay wixii soomaaliya taariikhdeeda ahaa magaciisa waxaasaan akhristaa muusig ma dhegaysataa muusig waagay soomaaliya xasishaan dhegaysan doonaa أول ما دقيسين waayo waabaa jirtay muusigaan xasaasiyad ka qabay maxaa dhacay waan kacandiidaha oo xabsi fadhiyey baa waxaana ku qaadi jiray heesas kacandiidka looga dan leeyahay waxma ka xasuus ya waxma ka xasuus kii qiimanayee dhabarku muuqdo waa dhalaar lagu dhowrayaaye dadkaaga dhinac ka raac baa ka mid ahay وقرتي حبسي بان فديدا waxa uu xidhan waa siyaasad hayse kala dabacsan iyo ma dhageysan waagaasaan isaga daayay uga badnaan music runtii laakiin Soomaaliya marka xasuusan chance wax kasta waa la bartaa inaan markaa music dhageysto inaan relax helo inaan nasto inaan magaciisa inaan codkiisa jeceshahay iyo Soomaaliya ajnabi midna fanaaniintoodan waa jecelahay حتى ورياش التسيب مدحوينه وانا اديق لفتيغا مدح ملكو جيبيو اديق لفتيغا حتى صاحب بقولاح يدهان ادي ادبك ما صدح هذا عمضة